السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا شرفت الصوماليات كسر هذا البرنامج كنا ولا شربتها وإن كي صباح الخير إديكيشن حافظة هيس لندن ما أنت واحد جوجا هيستون حافظة هاونسلو عروتي إذا مركز سكول كأني كبعدي يعني الروتين كيدا عادي قاعد سوبينه إن شاء الله تعالى إكسايسك ومدة صومالي مركو علقة يبصدها كليها قفك كلية حنون قبه walaalkay walaashay mar haddaas keliya xanuun qabtid waxaa lagaa rabo waxaa waaye inaad suubisid exerciseka wax badan lagaama rabo yani 45 minutes soco maalintii 45 minutes soco maalintii socodka caadiga weliba qofka keliyaha markaad mataqaana ka xanuunsan tahay laguma ogolo exerciseka mataqaana aad u adag sida biraha iyo mataqaana orodku aad ku vigorous exercise ay dhahaan laguma ogolo maadaama keliyihii ay damage yihiin marka laakiin waxaa lagaa rabaa biyo aad u badan iyo socod fara badan socod maalintii wax badan ma hayno shaqada hadda anigu hadda ka bacdaan gelayaa shaqada marka hadhow marka iskuulka la gaaro carruurtaydan ka soo dooranayaa marka waxaa lagaa rabo waxaa weeye exercise inaad ku dadaashid nabiga sallallahu alayhi wasallam waad ogtihiin faa'iidada uu exercise leeyahay markuu ka hadlayay yani wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف واتقان الحديث كاس يعني نينك الله رميي اما جماد الله سبحانه وتعالى رميسي oo xoog iyo kartida iyo caafimaadka leh oo cibaadadeedana ku darsatay ama ku darsaday waxay boqol ka fiican tahay qofka mu'minka ah oo runtii iska cibaadayso salaadiisa dukado iska daciifka ah daciif qofkaas maxad ku noqday waxa weeye exercise ma suubi caafimaadkiisa kama fikira bulshada kama fikira ma taqaana qof kale faa'iido asaga dhaafta oo dadka kale lah malaha qofkii marka waa iska daciif laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wa fi kulli khayrin dhammaantood waa dad ahlu khayr oo wanaagsan nabiga sallallahu alayhi wasallam saas uu yiri marka waxa laga rabaa marka adiga maadaama aan qurbaha joogno waliba khaasatan dadka Soomaali qorraxad Ilaahay si alxamdulillah cunto fireesh ay cunayaan dadkaas badanaa xagga caafimaadka waa nagu dhaamaan maadaama adiga qurbaha joogtid waxa laga rabaa waxa weeye inaad xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam isku caanfal fashido maalin alla geli waa in ay soo qortid exercise naftaada caafimaadkaada muhiima marka xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam adoo u niyoon ku camal falaya waad ogtihiin yani exerciseka iyo socodka iyo caafimaadka faa'iidada uu leeyahay assalaamu calaykum okay ardayda oo weynaateen ma sha Allah big boys now ma sha Allah alaykum salaam rahmatullah marka waxa laga rabaa marka inaad caafimaadkaada ka fikirto oo xadiidkaana ka fikirto nabiga sallallahu alayhi wasallam oo soo noqday waxa weeye waa kii exerciseka ku dadaalay oo asaga xaaskiisa Aisha radiyallahu anha waad ogtihiin ayagoo tartamaya marna ay ka raysay marna asaga ka reeyay laakiin hadda bariyaada muslimiinta hore waxay jireen dad aad iyo aad u dadaala ma sha Allah asxaabti ridwanullahi alayhim anagu bariyaada waxaan ugu dhacay ma aqaan dadku waa leys dhigtay aniga kamid ah waa idin sheegay mar hore waa leys dhigtay qofka dadka leeyaala leeska noqdo exercise lama soo biyo Allah subhanahu wa ta'ala muxuu yiri aayadii maxay ahayd waa'idu lahum masada'atun min quwwa marka cadawga la dagaalamaya wuxuu yiri u diyaarsada cadawga وعلى وحي حوق وديار سيد حوق maxaa kamid ah حوق jismiga kamid ah sida waramada loo tuuro sida fardaha loo raacdeeyo sida ma taqaana wax loo suqbiyo waa inaad baratid way nabiga sallallahu alayhi wasallam saasuulay allana uu ku sheegayaaba marka laakiin adiga daayirka uun gaarigaada taksiga saaran tahay baskaada saaran tahay taraaga Nairobi Mareykan lagu sheegay saaran tahay adiga ashil maantid marka waxa weeye waa khatar weey markaas ida caafimaadkaada khatar gelinaysa wax kale faa'iido kale oo adiga dadka kale u keento iska daayay adiga khatar isgelinay marka waxaan inkugu baaqayaa maanta exercise ku dadaal walaalkay ama walaashay oo de ma taqaan aad u shaqada badan oo dalka xataa aad u caawiso ma adiga 45 daqiiqo maalintii waa waqtigiisa waysay markaan dadka barkiis waxa way in shaqadaas yarta ku xisaabtay mar haddaas kaliya xanuun qabtid waxaad ogaataa jirkaada habeenka markaad saaxatid badana waa isxiraya marka subaxdii inaad shaqo gelin ka hor wuxuu u baahan yahay jirka inuu dhidido dhikarka hadda dhikar qabtid dhikarka soo dhaca adiga dhamaaladoo fireesho ka faaxay oo ma sha Allah shaqadaada inaad gashaal rabaa laakiin maadaama ay shaqadii ay subaxdii badan tahay waliba ragga taksiyaashan u digaya oo dhikarka qabaan maadaama subaxdii ay shaqada badan tahay wuxuu ku leeyahay shaqa ay dhaafayso maya shaqa ma waynaysid
adi markuu warayso jirkaan kala furfur oo dhiigan mataqaanaa ha soo dego oo jirkaada kala furfur walaalkay taasaan ku leeyahay caafimaadkaada wax kasta ka muhiimsan marka waad arkaysaan meeshaan dadkaasaa jooga fiir odayaashaas oo meeshaas subax alla geli meeshana ku kulna markaa carruurta keena yani dadka kulli waad arkaysaan marka carruurta iskuullada la keena waa la orda oo waa la socda ummaddii caafimaadkooda ka fikiriyaan laakiin qofka soomaaliga ahaa waxaa weeye wuxuu isleeyahay mataqaanaa ilaahan tala saaranaya ilaahay tala saaro hadda horaa idiin sheegay ilaahay ha u gafin الله سبحانه وتعالى وحكله واعدوا لهم ما استطعتم من قوة اكسايس كإنا سوبيسيت الله سبحانه وتعالى أساك وشيء آياتك وشيء لكن إلى أن تلا صارنيها بريسي باستهيل ابن واكر رجيها مركان عافمات كيدنا عادي ونقونيها وحص أرن إسكيني سماها مركان قف كستو كليها كحنو سبحان لي هاي walaalkay walaashay exercise muhiima waliba gabdhaha Soomaaliyeed ugu daran yani gurigaas la fadhiya lama soconayo waa ina aad u socotid socodkaada badi caafimaadkaada insha Allah ta'ala kor u soo kacaya marka biyahan aad u badso kulli ma taqaanaa yani cuntada la cuno hore aan ku soo sheekay in kasto wax badan ay dhimihiin oo anigaan waqtigeed iska yariyahay laakiin هذا ما أنت وحنا كاره وحوي صعد كصباح صعد كسدح سنانيجو هل ما متقنا مدمر هل ما مدمر ساسر وصعدها مركا أنت سنكسو كوبيا وحقنا قدرية حديث النبي صلى الله عليه وسلم مولجاه المامن إن لنفسك عليك حق نفت هذا حق بيكون هذا حق هذا الشيء ورصعد كبص إكسايسك بيها بدن عب cunto fiican oo healthy cuntada healthy waa yar qaali annagana cuntada qaaliga badan waa ka cararnaado markaan cuntada qaaliga soo gado because kiliyada wax kasta ka muhiimsan kiliyahan waa wax yar oo sidii digirta oo kale oo laakiin wasaq badan soo saaray marka hadaadan ilaalin waxa way waa khatar walaalaha sharafta leh marka caafimaadkaada aad u ilaali tan kale oo ilaalin waxa way walaalaha sharafta leh عروتنا غربة كلها وعروتان وأمانه عروتان أمانه وأدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن ما خانك النبي صلى الله عليه وسلم سبدين يعني قفك أمانة كودي أمانة دي سيس وجوده الله سبحانه وتعالى عروتهم ونو أمن عروت غربة أنا يعني وحنواركها كنت عروتها وحنكرنا سيدي حيوانك وحنكرنا وأنت فرنجير كوجو بحده وحاوي وإسكعنان إسكول كسال لجيها لكن وحكر لك ما فكر مركان وحاوي عنق هذا مستقبل أباهيه wuxuu ka dhaxlo u baahan yahay marka investment-ka faraha badan Afrika ku subinaysa kulli ma joojin kartid ani soo yareen ku dheelay saddex shay lagu badbaadiyo waatiin carruurteena dhahay hadda Afrika ku jiraan cunugkaada meeshan ha soo dhoofin qurbaha wax faa'iido oo guulay mala asoo masaakiin Afrika ku joogo boqolkiiba boqol waa ka fiican labo waa in mataqaanaa kuwan xaq geysid kuwan laftooda holiday gay dad barkiis way ku leeyahay holiday hatta ma awoodi because lacagta xaqay u socotaa Afrika dad barkiis qalad ay u fahmayaan Afrika dadka lacagta loo diray ka soo jooda maya dadka walaalaha waay laakiin waa inay mataqaan wixii xad leeyihiin waa waxaad shaqaynaysa iyo waxa ay diraysa waa inaad kala fiirisid dadkaas waxa way dad wax siin walaalka lacag yar u raad ha ku shaqaysto لكن بيل كان جوكتو $100 oo de walaalka iyo walaasha iyo abtiga iyo adeerka isku dirayso wallahi aan waxaan warka inaan lagu goynay because dadkii lacag yar la siiyay oo maanta shaqaysta la dhahay Soomaaliya lacag bay leeyihiin laakiin dadka biilka loo diriyay waa lagu go'een biilkay sugayaan dad barkiisa waxaan haynaa qofkii markaa dhintay meel ay u dhaqaaqeen garween qofkii dhintay biilka markaa intee laga helaatay qofkii waa dhintay oo qurbaha jooga Mareykanka jooga ama Yurub jooga intee biil laga helaya gacmaha la iskor saartay marka hal lagu goyna kule marka carruurtaadin waad lu goynaysaa ninkaas walaalka waa lu goyn hooye aabba waajibay kuu tahay carruurtaada waajibay kuu yihiin laakiin waxaan kale waa qaraabana layn baad ilaahay mari laynkaas ayaga qaraabada marsi markay ku soo wacaan xariirintooda sadaqada ciidaha oo kale soonka oo kale markay u baahan yihiin laakiin walaalka oo feero weyn yaa biil ku dhahay walaasha oo nin qaba yaa biil ku dhahay abtiga adeerka yaa biil ku dhahay ma jirto markaan dadka hadda wax u tirayso run sheegaysa carruurtan dhuunta haynine lacag yar u raaday 5 kun ku shaqaysadhe marka walaalaha sharafta inta soo soo koobiya barakallahu fiikum exercise ka kiliya xanuun hada qabtid exercise ka badso jazakumullahu khayr wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh